maamulka gobolka Togdheer ee ka degmada Burco gaar ahaan duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Yaxay Dubjir oo warbaahinta maanta ugu waramaya xafiiska dawladda hoose ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen khasaaraha naf iyo maalba leh ee guud ahaanba ka dhashay rooba gabaylo watay oo maalintii shalay ka da'ay magaalada Burco guud ahaanba madaxdan gobolka Togdheer ayaa waxa ay ku sifeeyeen khasaarahan midkii ugu ballaadna ee muddooyinkii ugu dambeeyay guud ahaanba raxmad eebe ku yimaada waana kan duqa degmada Burco oo qodobadaasi ka hadlaya way muddada waliba roobka magaalada dumiyay waxa la oran karaa 3-4 daqiiqo kama badnay laba roob oo isku jira jiray ahaayeen oo duufaano dabaylo leh duufaan aan oran dabaylo xooggan weer xooggan leh waxyaabo badan dhismayaashii dawladda kuwii shicibka dhirtii magaalada dirkaba wax u geystay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariistay qof dumari waa ku dhimatay dhaawaca kalena sida soo gaadhay imika ilaa 20 buu gaadhay khasaaraha dhinaca dadweynaha waxa ugu daran xaafadda Koosaar oo sandaqado u badan oo IDB ahay ilaa 710 sandaqadood baa ayaa roobkaas gudbay 700 iyo 24 waa goobta ugu khasaaraha badan leh magaalada xaafadda iyaduna IDB ga Ali Xuseen khasaaraheedu ma badna 20 guri ayaa iyaga ka dibay IDB ga saddexaad oo aadan Saleemaan dhibaato buuran ma gaadhin dhowr sandaqadood baa la sheegay wax badan ma gaadhin magaalada gudaheeda waxa magaalada ku soo rogmaday daad aad u badan sidaan filaynay khasaaro ma noqon oo sahlan guryaha dunida waxaan ku qiyaasnay ilaa 200 oo guri inay dhismayaashii dawladda airportka aan ugu horeysiyo hooyigi diyaaradaha loogu talagalay diyaaradu u hoydaan oo habeenkii hooynaysiin hadii ay xumaato la gelinayeen wuu dumay gurigii ilaalada ay bileys ku ilaalinayeen halkay diyaaradu ku haadaan isaguna wuu dumay siligiina dhaawac weyn baa gaadhay siligii garoonka ku meersanaa meel kamid ah dhinaca bariga waxa gaadhay dhaawac weyn baa gaadhay wasaaradda beeraha ayadana way duntay 3 qol oo kamid ah dumay Gahamit market suuqa gahal yiraahdo qayb baa isagana duntay kubadda cagta asagana qayb baa duntay 3 iskuulka Faraxsuus lagu horay oo uguna xun yahay maanta horana roobkii gugu intay u qaadeen dawladda hoose Soomaaliya kaasina waa uu jiingadii waxba kamay reebin iskuulka Sheekh Bashiir asagana hoolashiisa qaar kamid ah dumay iskuulka xaafadda Koosaar iskuulkeedina duqan degmada Burco ayaa markii warbixintaasi uu dhameeyay waxa uu geesta kala tilmaamay inay baahida taala iyo dhibaatada xilligan muuqata ay ka ballaaran tahay mid dawladda hoose ay wax ka qaban karto iyo guud ahaanba maamulka gobolka khasaaraha Burco ka taagan uu ka culus yahay mid reer Burco iyo reer Togdheer wax ka qabta uu ka culus yahay marka waa inaan dawladda ugu qaylinaa hay'adahan qaaranka bixiya ugu qaylinaa maanta intaasana saaran saaka waxa waajibkaygu waa ilaa xal roobkan dhixmaray inaan dadka horta soo aragno wuxuu qabo dawladna aan u qaylin laakiin dhibaatada maanta Burco ka taagan 954 guriga dumay marka ma awoodeedu ka baxsanta gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Yaxay Dubjir ayaa isaguna qayladaan dareen leh si shucuur leh ugu diray guud ahaanba cid kasto ay khusayso cid kasto oo wax u qabanaysa haday tahay xukuumadda baaq baan u diraynaa
hay-adahana baaq baanu diraynaa ganacsatada reer somaliland baaq baanu diraynaa waxaanu leenahay cid kasta oo dadkaa wax u qabanaysa burco aafadaas ku soo gaadhay ee raxmaadka eebe ugu gaadhsiiyey inay la soo degdegaan in kolley annagu gobol ahaan matalan iskuulladan dumay oo kale iyo dee wax awoodda meesha jirta waa dowladda hoosena inta ay qabanayso waa garanaysaa waxaan wax ka awood weyn dowladda dhexe gobolka joogta iyo dowladda hooseba ayaa dhacdo ilaahay inoo keenay waa Sabri TV-ga qaranka Somaliland Burco.